Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaad ku soo dhawaataan channelkeennii Maxamed Sahal. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo apps-ka loo yaqaano ama barnaamijka loo yaqaano Zoom. Horena aan uga soo hadalnay. Sidoo kale, fiidiyoogii hore waxaan kaga hadalnay qaabkaad u isticmaali lahayd Zoom qaab basic ah Zoom saad u isticmaali lahayd si basic ah ayaan ka soo hadalnay. Okay, maanta waxaan ka hadlaynaa qaabkaad u isticmaali lahayd si advanced si heer sare u isticmaali lahayd. Okay, fadlan haddaad u baahan tahay qaabkii hore waxaad ka eegan kartaa xagga sare kuu soo qorayaa. Sidoo kalena comment-ga kuu qorayaa, description-ka kuu soo qorayaa si aad si fudud u daawatid. Sidoo kale channel-kayga haddaad guda gashid channel-kayga waad ka helaysaa baro sida Zoom loo barto. Saas haddaad ku qortid waad arki kartaa. Okay, maanta programkan aan ka hadlayno waxaan rabaa inaan noqono host, inaan noqono maamula, inaan noqono rabnaa. Waa ku dhufanay Zoom-taasaan ku dhufanaynaa. Fadlan Zoom haddaanad haysanna soo download garayso. Haddii kalena linkiga xagga waxaan ku soo qorayaa comment-ga ku soo qorayaa sidoo kale. Okay, haddaad fadlan ku cusub tahay channel-ka subscribe saar, like-na saar, asxaabtaadana la wadaag si aan channel-ka u sii kobcino. New meeting baan dhahaynaa. Okay, new meeting haddaba labada qaybood baan ku kala sheegayaa. Labada qaybood waxay kala yihiin iyo say muhiimad u leeyihiin. Ta koobaad, inaad meeting markaad bilaabaysid in fiidiyowga kuu furnaado, kamarada kuu furnaato, lagu arko, wajigaaga la arko way taasi. Hadda buluga aan riixo dhinaca midig u riixo way furan tahay, wajigaaga la arkayaa. Haddii aan hadda tusaale kale haddaan dhinaca bidix u riixo lama arkayo. Okay, tan hoose aan imanaynaa. Tan hoose inaad isticmaashid personal ID. Personal ID halkaa waxaa laga wadaa tusaale ahaan Zoom markaad bilaabaysid. Haddaan iska xidho qaybta haddaan xidho Zoom-ta waxay siinaysaa 12 number oo si bakhtiyaar si bay ugu siinaysaa. 12 number ayaan qofka u yeedhanayaa. Laakiin 12 number waa 12 number isbedbedeli kara ma aha mid kasto hadda jeer qofka haduu geliyo uu ku soo gelayo ma aha. Laakiin soo mid isbedbedelaya weeyaan la socod. Badanka Zoom-ka haddaad hore Zoom ugu biiri jirtay waxaad arkaysaa dhowr ID number oo lagu yeedhanayo isbedbedelayaad arkaysaa. Waxa weeyaan waa Zoom-ka number qofkaas wuxuu ku siinayaa numberada ku siinayaa bakhtiyaar nasiibka ku siinayaa weeye. Kan laakiin wuxuu ku siinayaa password khaas ah ayuu ku siinayaa. Waa password khaas ayuu ku siinayaa. Wuxuuna ku siinayaa ID khaas ayuu ku siinayaa. Haddaad furatid password-kaaga ID-gaagu waa gaar waqti kastana Zoom-taada waa soo geli karaa si fudud. Okay, waxaan dhahayaa haddaba personal ID-ga waan iska furanayaa si ay dadku si fudud ugu soo galaan. Waxaan ku dhufanayaa start ma ku dhufanayaa. Connecting buu leeyahay. Okay, hadda waxaan ku jiraa qaybtan aan ku jiraa. Saa markaad ku jirtid waxaan doonaynaa qof baan rabnaa inaan ku soo biirino. Waxaad isweydiin kartaa horta intaanad ku soo biirin waxyaalaha muhiimka aan rabaa inaan ku xasuusiyo. Waxaad isweydiinaysaa horta intaanad ku biirin ID-ga xagaad ka helaysaa, xagaadse password-kiisa ka helaysaa. Sidoo kale waxaas oo dhan waxaa ka fudud aan talo ahaan ku siinaya anigu inaad link isticmaashid. Sidee baan linkiga u helayaa? Dhammaan saddexda waa ku tusayaa. Laakiin saddexda waxaa ka sii muhiimsan inaad magacaawdid meeting-ka qolkan la soo gelayo inaad magacaawdid ama qolkan la soo gelay inaad magacaawdid. Haddaba si aad u magacaawdid haddaba waxaad taabanaysaa qaybtan more taabanaysaa. Qaybta hoose xagga hoose more ku qoran tahay waad arkaysaa more haddaad baadhid more baad taabanaysaa. Yes, meeting settings baad ka dooranaysaa. Meeting settings baad ka dooranaysaa. Yep, xagga saddex hoos baad u riixaysaa hoos kaas weeye. qaybtaas xagga aan calaamadiyo meeting topic ay ku qoran tahay ayaad tegaysaa waad ku dhufanaysaa. Hadda magacayga hoose baa ku qoran waad ka baabiinaysaa. Kan calaamadii kan saarneyd ayaad ku dhufanaysaa. waad ka baabin meeting topic haddana si magacaaga aad ku qoraysaa.
waxaan magacaaga dad inta magacaas ku qori kartaa san ku sheegay tusaale ahaan waxaan ku qoraynaa inagu glasskan ku qoraynaa glasskan ku qoraynaa tusaale ahaan oo kale glass B baan oran karnaa san ku sheegay lecture hebel baan oran karnaa lecture waxaan oran karnaa lecture biology iska dhe ama chemistry baa dad doonta ama waxaad tirahdaa management aan oranaynaa tusaale ahaan oo kale management aan oran karnaa waxaan oranaynaa chapter 10 baan oranaynaa ikhtiyaarka adaa leh inta qof uu soo geli karaa inta hadda example ahaan waa isticmaali karnaa sidoo kale waxaad bixin kartaa kulankii waxaad oran kartaa kulankii hebel magaca doontaad bixin kartaa waxaan bixinayaa hadda anigu magaca YouTube ayaan bixinayaa magacaas waan la baxayaa YouTube ayaan bixinayaa markaad magaca meesha ku qortid haddaba waxaad ku dhufanaysaa halkaas sare don ishada la raax halkaas sare don ayaad ku dhufanaysaa okay don baan iri hadda soo tacaalay haddana waxaa sii taabanaysaa close intan kale usoo noqonaynaa close haddaba qofka soo geliya meesha tahay ama qofka midkan soo gelaya markuu soo gelayo wuxuu sii arkayaa warqad ah inuu meesha ku qoran tahay YouTube ku qoran tahay kulan yani kulan waxa mawduuca ku saabsan inuu yahay ayuu garanayaa sidaa darteed si fudud qofku uma khaldami karayo sababtoo magaca akhrinaya okay haddaba sidee baan ID-ga ku helayaa ID-ga tas waxaad taabanaysaa haddaad rabtid inaad hubisid qof inuu kugu jiro iyo in kale waxaad marar baa la isticmaali karaa waxaad ku dhufanaysaa department ku dhufanaysaa department qaybta hoose ishada la soo raac xagga hoose ayaad ku dhufanaysaa department ayaad ku dhufanaysaa department aan ku dhuftay soo artid lista halka waxa loo baahnaa arday badan ama dad badan halkaas soo taxnaa ama taxnaa lagasoo waa keliga meesha ku jira okay close day sorry close taas oranaysaa waxaan rabaa step by talaabo ayaa la socotaa rabaa haddaba waxaan soo saaraynaa ID-gii iyo passwordkaan soo saaraynaa qaabka u saaraysid waxaad ku dhufanaysaa zoomtaad ku dhufanaysaa zoom meesha qoranta hadda arkaynay xagga sare zoomtaasaan ku dhufanaynaa okay qaybtaas sare waa ID-gaagii weeyaan kani waxa weeyaan waa magacii ku qornaa adi meesha kana waa passwordkaagii waxaan isticmaalayaa anigu la soco waxaan isticmaalayaa personal baan isticmaalayaa ID ama ID khaas ID-gii zoomtiisa ayaan isticmaalayaa sidaa darteed passwordkaasi ma bedeli karo waxaan tusaale ahaan oo kale passwordkii ID-gaan soo geliyey waxaan qorayaa tusaale ahaan oo kale 9x yar baan qoraysaa small x h weyn ama h capital r capital I waan oranayaa 1 ma raacayna 1ka ayada marba isku khaldan garan waayo mar aad ilaawi kartaa ha ilaawin hal xaraf hadaad ilowdid ama xaraf hadaad yareysid xaraf yar hadaad weyneysiisid ma soo gelayo qofkaasi okay sidoo kale tanna waxa weeyaan waa linkigii ka hoose sorry qaybtaas kuma jirto yaan ku khaldamay waxa weeyaan okay qaybtana waa linkigii weeyaan sidoo kalena kana waa ID-ga aad kaga qayb qaadanaysa meesha ama ID-ga aad kaga qayb qaadanaysa kani muhiim maaha wax muhiim maaha okay haddaba waa soo aragnay ID meeting ID waa soo aragnay host ama magacaaga meesha qoran waa soo aragnay passwordkii waa aragnay linkigiisa qofka linkigaas aan soo qadan lahayn inaga waan arki doonaa kani walow aanu muhiim aanu ahayn waa ID-ga aad kaga qayb qaadanaysid okay afartaba waan aragnay okay haddaba linkiga saad u qaadanaysid haddaba ID-ga waad u yeelin kartaa qofka laakiin saad u qaadanaysaa haddaba linkiga saad u qaadan kartaa ninkan kaliya waxaad samaynaysaa intaad meeshaan ku calaamadiyey bartanka halkan weliba dhexda saaray ayaad cadaajinaysaa markaad cadaajisid waxaa kuu soo baxaya linki covid fiilad aniga wuxuuna yiri invite link has been copied buu yiri waad copy garaysay whatsappkan gelayaa qofka basti kaliyan u siinayaa wax kale u taaban maayo okay sidoo kale waxaan ka heli karnaa meelo invite-kan ka heli karnaa participant-kan tagaynaa waxaan taabanaynaa invite-kan taabanaynaa invite waa message qofka message ahaan ugu diraysaa message ugu diraysaa maya gmail baad ugu diraysaa maya waxaad ugu diraysaa number ahaan baad ugu diraysaa laakiinse waxaa fiican oo muhiim ah inaad iska qaadatid kan inaad la baxdid
linki copy file link inaad tiraahdo haddaan ku dhufto hadda oo copy garaystay saas igu jira qaybtan si fudud waxa weeyaan si fudud ku heli kartaa tan okay hadda waxaan ka soo hadlay qaabka meetkan topic soo magacaabi lahayd oo number 1 ahayd iyo waxyaalo yar oo soo hosgalaya sida ID u heli lahayd password u heli lahayd iyo dhammaan iyo waxyaalaha laga baahan yahay okay hadda waxaan ka hadlayaa step wadaan ka hadlayaa stepti labaad hadda soo gudbayo step weeyaan stepta koowaad step labaad horta waxa weeyaan isaga waa sidaad member qof aan ugu soo dari lahaa sidoo kalena qof sidaan ugu soo dari lahaa muxuu asaan screen share u sameyn lahaa iyo sidaan dadka meesha u maamuli lahaa afarta step ayaan maanta ugu talagalay stepta koowaad waan ka soo hadlay stepta labaad hadda sidaan dad ugu soo dari lahaa ayaan hadda ka hadlayaa okay ID-ga passwordka waan ku sheegay ID-ga passwordka u yeeraysaa qofkii soo gelaya inta kaliya kuma koobna ID password kaliya inuu geliyo kuma koobna waxay ku koobantay marar message oo tusaale halkaan inuu kaga soo baxo oo qofkii inaad admit siisid soo ahaan oo kale أنا هذا إما صباحين سؤالي حنفري أنا أسكي حدا فيليا ممكن حنفري أنا حلاج أنا فيليا قف كان سوق لنا باسورد كمان إيه جنات صح باسورد كم يلنا يب هذا مسج مسوق لنا هذا قيت هنا صباحين سؤال رسيد وهي علي حاس إنت الروم يعني مكسوق يا علي مع أدمن فاتينا سامية أقبل سا مسسي الروم باتينا سا هذا كذا حسد دقيقة كوتشرتي مركب وحاسة تعاون سا أدمن كنا تعاون سا أنا بس كتاونيسا حتى كده maxaa sameynaysaa qolkaad ku sugaysa yani dadaad wax la sugaysay hadii casho haday su'aal la weydiinayay hadii su'aalaha in wax ka maqlaan su'aalaha aad isaga gaar ugu dhigaysid si waiting room aad ku dhufanaysaa hadii kale waxa ku dhufanaa admit hadda anu wana cali oo saaq balaya oo soo dhaweynaya cali admit baan ku dhufanayaa admit aan siinayaa okay hadda cali wuu inuu gala jiraa qolka weyna maqlaya okay waastiga tagaya agaasar waxa ku qoran cali wali joining wali uu soo galaya okay asna qaabka mid ku soo galahay screen share kan galaya wali screen share ka inkasta aan jeclahay inaan si guud galo sababtoo ah waxa iga xirmay recording iga xirmay sadarteed markaan aan guud galo laga soo qoro tilmaamaya OneDrive Microsoft OneDrive hadaad leedahay aad leedahay email ama mail outlook hotmail hadaad leedahay email hadaad leedahay waa aad drive waa muhiim drive-yada inaad wax ku kaydsated waxay ku siinayaan waa meelo adigu Google Drive iyo Drive-ka dhamaan waxay ku siinayaan meelo aad wax ku kaydsasid ayay ku siinayaan si fudud ayaad ugu kaydsan kartaa kaydka hadaan kuu sheego waxaad ku kaydsanaysaa media ayaad ku kaydsanaysaa video ayaad ku kaydsanaysaa sawiro ayaad ku kaydsanaysaa waxa documentiyo ayaad ku kaydsanaysaa application programme culus ama programme qaadanayay 5GB farxaan kale qofka ku yiri barnaamijka soo dir WhatsApp lagama diri karo waxa ugu badan waxa weeyaan 67 ayaa ugu badan wax la diro sidoo kale 67 megabyte baa ugu badan sidoo 5GB ma diri kartid si qaabka u diri kartaa Facebook qofka hada sirada ugu dirna waqti buu qaadanaya daatada ka mobile data uu ka cunaya ama wireless data uu ka cunaya maxaad sameyn waxaad sameynaysaa Google Drive ayaad gelinaysaa si fudud linkiga aad diraysaa waa video insha Allah video waxaad ka diyaarinaya waxaan rabaa inaan soo dhigaan rabaa videogaas ayaa insha Allah si fiican uga daawan doontaan laakiin si waa dhamaan video wax lagu kaysado halkan waxaan ugu soo dhigay inaad qofku inaad gelisid qofkana inaad qofku inaad daawasisid videoga meesha kugu jira ama waxa videoga kugu jira Google Drive ama Microsoft OneDrive kugu jira ay inaad daawasisid inaad sawirada daawasisid inaad documentida ama PDF-yada kala soo dhaxbaxdid laakiin ogow halka point ku siinayo la soco markaad gelisid Google Drive aan u badan haystaa Google Drive markaad gelisid wuxuu si gelinayaa browser uu gelinayaa wuxuu ku weydiinayaa Zoom-ka password-kaaga iyo email-kaaga ku weydiinayaa waa inaad xasuuslaataa haddana xasuuslayn fadlan waxaad soo gelin Google Drive waa inaad ka soo dejisataa hadii kale baalka password ku weydiinayaa ma geli karaysid wala boxka isna aan isticmaalay isna media isna wuxuu kaysoo badanka comment kuma ihi footadan iyaduna ay fududahay footadu waa sawirka soo dhigtay weeyaan documentigu waa inaad waxaad kaliya share garan karaysaa waxa weeyaan PDF waa Word sidoo kale PPT Excel dhamaan wixii documenti ayna baad kaliya share garan kartaa web URL hada halkaad istaago waxaad share garanaysaa iyo web URL salahan Wikipedia ayaa cashar muhiim ku aragtay
waad soo koobi garan kari weyday waxaa jira website badan website iska xidha website waxaa jira iska xidha waxaa jira website iska xidha in wax lagu koobi gareeyo ama highlighterkan iska xidha ayaa jira tusaalahaan kale linkigaad soo koobi garanaysaa web url-kaad gelaysaa si fudud kabacdi waxaad siinaysaa web url markaad siisid baa share taabanaysaa taayadana dul istaagi doonaa bookmark waxaa save garaystay waadaad save garaystay screeno hore haday ku save garaysnaayeen aadidaysa screenada kale in laga arko ayaad taabanka tusaalahaan waxaa jira tusaalahaan oo kale dokumentiyo kuu saaran screenka hore home screenka hore kuu saaran ayaa jira waxaad digaysaa dokumentiyada in laga arko ayaad digaysaa waxaad rabtaa hal document kaliya inaad la wadaagtid waxaa kale inaan la arag bookmarkaad ku save garaysanaysaa screenka haray screenka isaguna waa in qofka screenka u sheegay screenka fudud yahay screen hadaan ku dhufto hadaba home waxaan geenayaa baalkii home screenka ayuu geenayaa ama screenka meeshaan bilowga geenayaa si fudud ayaad u isticmaali kartaa screenka waliba waa caan weeye haddaad isku dayid waad isticmaali kartaa sidoo kale share whiteboard inaad whiteboard qofka whiteboard ugu sharaxdid oo ku siinaya qalin buu ku siinaya xagga hoose wuxuu ku siinaya qalin buu ku siinaya xaggana wuxuu ku siinaya baabishtii buu ku siinaya wuxuu ku siinaya calaamad saas oo kale qormata oo sadi ah buu ku siinaya kalarkii buu ku siinaya calaamad sida baaldi oo kale u sawiran ama xaag u sawiran oo kale oo aad clear ku clear gareynaysid ayuu ku siinaya iyo more intaas weeye whiteboardku dhammaan waxaas haddaad isku daydid waad si fudud baad ku baran kartaa hadda waxaan rabaa jeclaan lahaa inaan taabto laakiinse waxaa ii diidaya haddaadan taabto share whiteboard haddaan taabto waxaa iga xidhmaya recordka iga xidhmaya sidaa darteed codkan waxaan duubayo oo dhan baa iga kansalmaya saasaan ku diidaya okay kaasaan baan odhanayaa share screen waxaan ka hadlay walow aan dul maray waan kasoo hadlay okay hadda lastly waxaa hadhay qaabkaad member u maamuli lahayd sidee baad member u maamuli kartaa member waxaad tegaysaa more baad tegaysaa xaggaa hoose ayaad tegaysaa more ayaad tegaysaa more markaad ku dhufatid meeting settings baad taabanaysaa meeting settings ayaa taabanaysaa okay haddaba wuxuu inuu kala baxayaa 4 qaybood weeye qayb waa qayb ka hadlaysa security ka hadlaysa qayb waa qayb ka hadlaysa waxaa dadka u oggolaanaysid qayb waa qayb ka hadlaysa adiga waxaad maamulaysid host control adiga ku khusaysa kaliya aan dadka kale khusaynin qaybna waa qayb general ah qaybta host controlka isagu waxa weeye dadka kale khusaysa laakiin ada wax maamula dadka kale wax ma maamulaan qaybta dadka kale kuma maamuli karaan okay haddaan step by step dul istaago qaybtan log meetingka waan xirayaa cid soo gelaysa ma jirto tusaalahaan aniga cali baa meeting qabsanayna cid kale ma rabno inay soo dhex dadkayna khalaalisa ma rabo meeting hataan ku dhufanaya meetingka markaad ku dhufatid calaamadan baad furaysaa calaamadan baad ka wariyaysaa blue sida kuwaas sida halkaas oo kale blue bay noqonaysaa blue markay noqoto taas waxay u taagan tahay inay ku furan tahay okay waiting room kaas hadaba haddaan ka hadlaysnaa waiting room waa inaad furtid qol wax lagu sugo meel wax lagu sugo dadka markay kusoo codsadaan ama ay soo raacaan linkiga ay soo raacayaan waxay gelinayaan baasaboorka soo gelinayaan inay ku sugi karaan inaad meel ku sugi karaan u furtid haddaanaad u furin qofku wuu kaa baxayaa okay sidoo kale share screen dadka qaybta waxaan soo dhaafnay security aan soo dhaafnay waxaan gelaynaa dadka waxaad ogoshahay share screen haddaan share screenka aan furo qof kasta wuxuu share gareyn karaa qof walba dad ka qayb qaadanaya share screen uu taaban karaa waxaa jirta haddaad adigu cilada la kulantay marmar waxay dhici kartaa macalinku uu cashirka pdf ka delete gareysmay ama iska xayiray ama khadku u diidayo inaad khadku ku diidi karaa khadka hadduu daciif yahay waxuu share screenkaagu codkaaga gogo'ayaa share screenkaagu way istaagaysaa haddaad taas ka cabsanaysidna aad ardada leedahay intaad buug u dirtay war hebelow share screen waxaa inoo samey ama qofaa wax soo jeedanaya war hebelow waxaa soo jeedasay soo daa adiguna hostigii baa tahay qofkaasna hostigii ma aha sidee baad ku samayn kartaa share screen waad furi kartaa share screen waad u furi kartaa qaab kale ku samayn kartid way jirtaa idoo kusii doonaa share screen waad furaysaa qofku share screen muu samaynayaa just sidoo kale chattingka
qofku dadkan meesha ardada ka qayb qaadanaysa meesha dadkan meesha ka qayb qaadanaya waxaad u ogolaanaysaa inay sameeyaan inay cid kasta chatting sameeyaan chatting ma cid walba la sameynayaan ma cid walba chatting sameynayaan mise si public iyo si private ah si guud ahaan dadka ula hadlayaan iyo si khaas ahaan ay dadka ula hadlayaan private and public sidoo kale ma adiga kaliya bay kula hadlayaan sidoo kale waxay la hadlayaan mise wad xiraysaa si hadda u aragno kan no one inaan cidna la hadlin taas waxa weeye hadda rabtid casharka inaan laga khalkhalin ayaa taabanaysaa no one inaan cid la hadlin xitaa adiga aan lagula soo hadlin taasad ku dhufanaysaa tigtayar kala fulaysa tigtayar kala ayaa fulaysa host only in adiga kaliya su'aasha weydiiyo cashar baad sharaxaysaa qof baa meel ku istaagtay adiga kaliya su'aasha ku soo message ku soo dir cid kale uma diri karo everyone publicity wuxuu qofkani message u diri karaa ama chat la sameyn karaa cid kasta public ah cid qofna si khaas lama hadli karo xitaa adiga si khaas kulama hadli karo adiga mooyaan adigu ma qof khaas dadka si khaas loo hadli kara dadka kale si khaas uma wada hadli karaan sababta public baad ka dhigtay everyone taa kaliya waxay u taagan tahay qofku inuu xor yahay dadkana si khaas qof ula hadli karo sidoo kalena si guud ahaan ula hadli karo okay waa chatting ku ka hadlayay ka soo hadalay chatting ka soo hadalay dadka sidoo kale rename themselves ina qofku ogolaatay ismagacaabo taasi ka hadlaysa tana qaybtan iyada ka furay unmute themselves inay iyaguna codka microphone isku furaan marka mute siisid qaabka mute loo siiyo adigu waa ku tusi doonaa marka mute siisid inay iyagu dib isku furaan kani waa host control kani waa host control kan waa meetingka topic aad u bixinaysaa qolka la soo geliyay magaca u sii bixinaysid sidoo kalena waa join and listen qof wada inaad furtid qof baa soo gelaya qof baa baxaya inaad jabaq u samaysid yani jabaq u yeesho sida message kale message baa ku soo dhacay qofka hebel baa baxay hebel baa soo galay sidaas oo kale weeye taasna host control weeye channelka daan u imaado channelku inaad qofka mute gareysid adoo ku xirayo mute about entry qof kastoo soo gala inaad markastuu qofku soo galo mute saar qofkii soo galaba mute saar يعني حاجة أدو موت إسكسار أد وقت كله من لهاي 10 بعد شراحيسا أما واحد بعد شراحيسا قف سوقل قف مركبة سنقرب كعك بحيسي أما إسقي بهاللي ورنايا حاجة لما يا وهالكي وما لما غلا بورنايا سأن هذا لا أنا ضم مقلين واحد فنسا قيب تصاد فريسا صهانو كله قيب هذا ويجي حدث قف كريستو سوقل موت وفولا مركبة وأنا أسكف فريا اختيار كذا وحري هاي sidoo kale inaad furtid dadka aan ka qayb qaadanayn waxaa laga wadaa dadka aan hadlayn inaad u furtid videogooda inaad aragtid sawiradooda picture profileka u saaran inaad aragtid ayaad furanaysaa taasi waa inaad furtid saasoo kale anigu hadda way furan tahay waa iska xidhaya tani waa inaad qofka hadlaya ama ka qayb qaadanaya inaad aragtid iyo inaanad arag sahaan waxaan ku dhufanayaa waa arkaya sababta waxaan rabaa inaan emotional ula hadlaan rabaa waan ku dhufanayaa yani inaan dareemo qofkaas inuu hadlayo ama qof inaan taasaan ku dhufanayaa waa furay heesada anu ikhtiyaarka marka inaan furaada marka anigu ikhtiyaarku adigu kuu xidhan yahay qaybtaas waa meeting controlka waa qaabka u maamulayso weeyaan close baan siinaynaa waxaan rabnaa qaybta labaad inaan gudubnaan rabnaa close baan siinaynaa okay taas haddaba qaybta labaad oo nagu dambeysa waxay noqon doontaa qaabkan iyaduna waa qaabka mute u saari lahayd waxaad taabanaysaa mute all wada haddii su'aal bad weydiisay hal qof aad su'aal weydiisay 9 qof ku jawaabay mute all ka taabanaysaa xagga hoose qoran tahay mute all ba taabanaysaa namaan way ka xidhmaysaa hadda tusaale haddaan u furo codka su'aal codka tusaale kale cali wuxuu furtay codkii buu furtay cod baa ka baxaya waa arkay cagaar wato yar fuulay cod baa ka baxay codkaas waxaan rabnaa inaan ka xidhno bataan uu baynu hadlaya ama 9 qof oo hadlaya mute all baan siinaynaa ma hubta yes baan siinaynaa mute all baan siinaynaa su'aalati mute all baan siinaynaa an mute darabti inaad tiisina isna oo khudsi doona sidoo kale qaybtan hoose waxa kale saqaadad report ka gudbinay zoomta dad ka cabanaysid cabashada zoomta gudbinaysid weeye tanaan qaabkaad dad ugu soo dar lahaydna linkiga wayaan saa oo iyada waa soo aragnay haddaba waxaan rabaa inaad soo qaabka qof magacaabi lahayd iyo host nooga dhigi lahayd waxaan ku dhufanaynaa qaybtan aan ku dhufanaynaa
cali baan ku dhufanaynaa. Okay, dhimaha hadaba qofka haddaad rabtid inaad codka ka qaadid kaad kaga qaadi kartaa. haddaad rabtid chatting profile inaad la hadashid waad la hadli kartaa. Even haddaad chatting xataa iska haddaad xidhay adigu waad la hadli kartaa. haddaad rabtid host inaad ka dhigtid waad ku dhufan kartaa, host buu qofkaasi noqonayaa si fudud. Okay, haddaad qofka ka codsanaysid inuu videoga furto si aan wejigiisa u aragno ama aad ka codsanaysid waad ku dhufanaysaa, qofkaas message baa soo dhacay wuxuu waraaya hostigu wuxuu ka codsanaya videoga inaad furitid wuu furmayaa. qofka inaad magacaawdid waa ugu muhiimsan inaad qofka magacaawdid. qofka wuxuu kusoo gelayaa G6 buu kusoo gelayaa plus G6 wuxuu kusoo gelayaa M10 A10 buu kusoo gelayaa magacyo mobile buu kusoo geli karaa ama magaca walaalkii oo Zoom oo meel kale ku galay ayuu kusoo geli karaa. magaca rabta inaad ka bedeshid inta chatting la sameeyay aan ku war waa kuma uu yiri waa hebel hebel uu suka sheegay rename baan sameeynaya qofkii waxaan ku qorayaa cali maxamed baan ku qorayaaba. Okay, qofka inaan u ogolaado inuu recording isku sameeyo allow record ama inuu record gareeyo recording gareeyo. sidoo kale qofka inaan dhigo putting waiting room inaan dhigo qolka la isku sugo waxa laga wadaa yani su'aalaad uu rabta inaad weydiisid su'aalahaad qofka weydiinaysid waxa rabta qofka cali inaan ka qayb qaadan baan rabaa caliga waa dhigi doonaa remove inaad ka saartid remove idoo fududahay. Okay, unmute ka qaadi kartaa codka ka qaadnay unmute waa fuulay sahnaa kale make host ka dhigi karnaa start video waxaad ka codsan karnaa. waxaan raayaa leeyahay waan raayaa message kale soo dhacaya waxaan yiri halka cali wuxuu yiri haduu tan furanaya qof markuu diido weeye. Okay, waa magacaaba inaad sahnaa kale G6 baan bixinaynaa isaga G6 ku bixinaynaa G6 baan bixinaynaa sahan caligi G6 buu isku bedelay. Okay, sidoo kale qofka inaad ogaato inuu record gareeyo recording uu sameeyo inuu Zoom duubto. sidoo kale qofka inaad dhigtid putting waiting room inaad dhigtid waiting room hadda cali waa saaraynaa. cali hadda kama qayb qaadan ee hadalkan waxaan leeyahay ma maqlayo sababtoo wuxuu ka baalkii waa ka saaray Zoomti. taasna waa mid kuu fududeynaysa inaad dadka kale maamushid weeye qaabka dadka u maamul lahayd saad iskaga saari lahayd. hadda cali su'aalo kale aad sahan cali waxaa ku jira maxamed baa ku jira maxaad baa su'aalaha weydiinaya mar rabo cali inuu maqlo mar rabo cali baa soo gelinaya sahan oo kale cali baa soo gelinaya waxaan taabanaya admit aan taabanaya. hadda cali wuu kula joogaa. Yes, cali hadda wuu inala joogaa. cali wuu soo galay qaybtaasna waa qaybta dadka u maamul lahayd weeye ama control memberka u maamul lahayd. Okay, waad ku mahadsan tahay daawashadaada maanta video intaas inoo leeyahay. fadlan haddaad video ka heshay ka ilaawin subscribe sidoo kalena inaad like iyo share siisid sidoo kalena asxaabtaada inaad la wadaagtid. aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kalena hana ilaawin fiidiyoda dusha ku saaran si aad uga faa'iidaysatid fiidiyoda hadda aan ku saaray si aad uga faa'iidaysatid. sidoo kale waad ka daawan kartaa waxaan ku saarayaa Classroom si loo isticmaalo sidoo kalena waxa hore aan kuu soo celinayaa qaabka Zoom-ka si basic ahaan u baratid basic-na halkaas aan kuu saarayaa si fudud si fudud halka ugu baratid xaga loo fiidiyo halkaas ku saaran yihiin sidoo kalena halka hoos dhaxal soo saarayaa sawirkaygii si aad subscribe u saartid subscribe to weydid lacala dad weydid halkaas si aad subscribe u saartid. aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawashadiina waa maxad sahal oo leh waa mar kale iyo kulanti wacan.